cabdikariin waxaa la soo daayay saaka imise saac baa la soo daayay saaka labadii saac ee subaxnimo ama 8 aroornimo. marka yaa lagu sii daayey oo gacanta loo geliyey? hadda dadkiisii la joogaa cidna gacanta uguma jiro anaga hadda meel joogaa. meesha aad joogtaanna waa halkay? waa magaalada Addis joognaa. waa gartay. marka ma dawladda idin yeedhay oo idin tiri cabdikariin maa sii daynanaa kaalaya mise ballan horaa jirtay in maanta la sii daynayo? maya waxaa weye dowladda federaalka ayaa gacan ka geysatay oo sii deyntiisa iyadaa sii daysay. sidaasba hadda annaga ehelkiisii iyo dadkii uu ka dhashay oo hadda kula joogaa. waa gartay. qoyskiisii iyo carruurtiisii miyay joogaan? maya xaaskii baa magaalada joogta laakiin carruurtii xagga iyo Kenya ku maqan yihiin. marka ma cafis baa lagu sii daayey ma shuruudaa lagu sii daayey? bal wax yar sharax qaabka sii deyntiisa. qaabka sii deyntiisu waxaa weeye cabdikariin waa la sii daayey si yaraa sharciga ah waafaqsanayn buuna gacan ugu jiray. dowladdana hadda cusub waxaa weeye weli way cusub tahay wax badanna way qabatay wax badanna way u dhiban yihiin. markaan xoogaa u noqonay in uuna si sharciga waafaqsanayn uu gacanta ugu jiro ayaanu wargelinay dowladda amarkiisa bixisay in la sii daayo. sidaa ogeed baa lagu soo daayay. caafimaadkiisu waa sidee? caafimaadkiisa iyo muuqaalkiisuba aad iyo aad bay u fiican yihiin alxamdulilah. waa gartay. wax dhibaato a miyuu qabaa ama dhaawac ah ama dhib kale ah? maya wax dhib iyo dhaawac ah midna ma qabo. qorshihiisu muxuu yahay tallaabada xigta? qorshihiisa wuu joogayaa waddankiisii buu joogaa. waxaa weeye waddankiisii buu joogaa. marka waxaa weeye inuu saacadaha soo socdo mas-uuliyiin la kulmo sabtarana waan rajeynaynaa.